بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وسلامتي دمان أخيارت شرفت له iyo Soomaali weyn meel walba ay joogto caalamka بعد السلام waxaan rabaa inaan taageero u diro horta dadka walaalaheena ay shir jaraadkii ku qabtay magaalada Jowhar taas oo loogu biidina in xibnihii oo ka soo aaday gobolka qaatacsanaa qaatacanka ay qaataceen horta waa la qabaa waana qaatacsanahay saan u dhannahay haddii la yiraaha jirar weyne markii hees loo degana aniga markaan ka hadlayo beesha shiidlo ama qurbi joogta ku hadlayo run ahaantii waa nasiib daro oo ayaan daro in micnaha maanta ay Soomaali ku murunto wax walba murun laga sameeyo madaxdeeda sare iyo kuwa hooseba intaba dhammaan dadkii aqliga u saleemku horta wadanka way ka tageen dad aan wadankan shaqo iyo waxba ku lahayn ayaa maanta faraha kula jiro saas darteed waxaan leeyahay madaxda sare waxyaalo badan aad ka fiirsanaa jiro oo ka fiirso u baahan qofka bini'aadamka waxa fiican wuxuu expert u leeyahay inuu horta faraha la galo wasiirna ma la iska doonana wasiira la naqana wixii loo yahay lama yaqaano iyo dadka loo yahay waa ayaan daro maanta in wasaaradda arrimaha gudaha ay xibna iska qorqorato oo dadkii loo geeyo ayagoon lagala tashan ama la dhihin ama la ogeyn ama taariikhda waxba laga kasayn waa ayaan daro waa ninka la leeyahay wasiirka arrimaha gudaha ee Oduwa waa horta nin dadaal badan waaye laakiin hase yeeshee waxa waa dadaalkiisa aqoon uma laha waxyaalaha oo faraha oo kula jiro run ahaantii waxa fiican waxaana marka qofka faraha la galaayo inuu horta aqoon u leeyahay kow tan kaleentane dadka dega labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waa dad la yaqaano taariikhdooda qarsoomeynin 150 qabiil ayaa wada dega oo wada Soomaali ah haddii ay arinta ahaan lahayd maanta Soomaalinimo waa dhihi lahayn maanta Soomaalinimo waa ilaa meesha ugu sareysa ilaa meesha ugu horeysa maanta Soomaaliya waxay ku dhaqantaa ay qabiil waa ayaan daro waaye marka qabiil in oo wax lagu qabsado hadina dadkii qaar in lagu haqoodi la rabo in lagu duusado taasoo macnaheedu tahay dadka maanta gobolka u dhashay oo kaleenta in la yiraaho isku soo duuduubo 6 bilood aan siinay oo la isku soo duuduubo isla habiyihiina in laga dhigo 150 qabiil hebel waxaan siinay hebel waxaan siinay hebel waxaan siinay hebel waxaan siinay kii laba qaata kii hal qaata kii 10 qaata kii 10 qaata kii 15 qaato dadka leena isku duuduubo inta deganbo ama Hiiraan hadda ganaadaano ama Shabeellaha Dhexe hadda ganaadaano 6 bilood ugu talagalnay ama aan siinay waa arin aad iyo aad loogu xumaado arintaas ayada aan aqliga saliimka ama yeelayo marka waxa ay leeyahay lahaa arintaas lagama fiirsan wadankan kulay wasaan dareemeen aan wada ognahay xumaan uu ka dhargay dhiig uu ka dhargay warnimiyo xogaa wadanka haloo naxo aan loo naxariisto dhiigan badan daadanay hal joojiyo ilaa arintan hadii si socoto dhiig badan ku daadanaysan dareemeeno sababtoo ah dadka shaqo lagu tuminay maanta weydiiday wili cariisha degan hada ogtihiinba dadka saraha dhistay ama macnaha labada maalmood ay qalaas ka faa'iideystay oo guryaha dhalada dhistay ma garan ayaga ilaa xaraan macna wixii la dagaalamaan oo kaliya waa qutuliyoonkooda inay xaalad ka dhigtaan hadii maanta adigoo sar degan aad dhagax u bilaaween cariish degan kulli adaa ku qasaarayo marka qasaaradana kulli adigu ku gaartane ana igama dheero marka waxa idin dhihi lahaa dadka maanta raba inay haq qof leeyahay duudsado inuu arintaas ayda ka fiijinaado ay arinta sidaas ahaan oo arintan qof aqoonteeda leh loo diro dadka kale yaqaan maanta ma aha ma taagna Soomaali in loo horseedo mashaakil kale iyo dhibaato kale iyo dhiig kale waxaan ka digayna waxa waaye waa dhiig kale inuu daato laakiin arintaas ay ku socotane waxay u badantay inuu dhiig kala daato marka Soomaali weyn arintan ayada ka hadla culimada diinki kama hadlayaan dadkii aqliga saaxiibka ah kama hadlayaan siyaasiyiin meesha ma jiraan marka waxa raal la iskaga yahay raal la iskaga wadatiin Soomaali saa u dhintihiin sinin maskiin ah ama nina speaker lahayn sidii loo duufsan lahaa ama loo duufsan lahaa xaqiisa taasna Ilaahay raali kama aha waana wada ogtihiin kalmada Ilaahne dad badan lagu caayay marka taas aniga kama jawaabayno kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlayaa anoo ku hadlaa magaca qurba joogta ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka soo jeedo arintan ayada hadii laga fiirsan inay arinta ay dhiig badan daadan doonto inuu dhibaato badan oo u horseedi karto marka waxaan dhihi lahaa madaxda sare sida madaxweynaha
رئيس برلمانك برايم مينسترك انتي ومعنا ارمها شقو كله وزارة ارمها جودها نك ليها اوديوا وزيرك inay arintan dib ugu fiirsadaan ay arintan ay si fiican u baaraan ayna ogaadaan ayagoona macnaha haddii ay qasban yihiin oo caalamka ay qasbayaan leeyahay dadka laga tirada badan yahay waa meeshaan tiri badnaan ma jirto haddii gobolka kaliya ay ku tiri badan yihiin la rabaa in haddina dadka caalamka la tuso inay wax tira ay ku lahayn meesha tiri badnaan mehe waa sida hor loo sheegay waa hub badnaan ninkii hub badan haysto ninkii dagaal badan galay ninkii dhiig badan galay ninkii wax badan dilay ayaa wax iska leh كله أرمهان مجودين دونه إلا إيو أنا كسل جارنو ودن كان ضد أصور ننتي أم أصور رفاضي وهذا تورت دحل قلي أهاي لكن وحي كدم بي ده فشلية ده بدنا الله تليه فشليان مركب فشل كأنا نمسي في سنين إن شاء الله تعالى إلا وحن كود ذالينا أنا جنه أم بدبال أنت لمن ليجنا وحي هروب دات إنه أهابن كود ذالينا لكن هدي دنت بد إن ليك الأوسية داتنه هدي سوماليا وحكيشنا ليه أنا وحما هنا قسيننا هدي كرسل أهين نيول بهقيس والي يقانا قبلك سيدلو كل دقيه والي يقانا حقيقتها laga hadlo dadkii culimada ahaa ha ka hadlaan arintan dadkii wax garadka ahaa oo dadkii taariikhda yaqaanay ha ka hadlaan xaqiiqadan ha ka hadlaano waa ayaan dar inaad cunugaaga ku koriso ama micnaha aad u sheegto jiilka soo baxaya waxana jiran ama been waadin salaamaya dhamaantiin arintan ayada waxaan taageersanahay dadkaas walaalahayga ah qaatacad ay qaataceen arimihii xibnihii loo soo aaday kow iyo waxaan taageeriyaa boqolkiiba boqol qaatacad ay qaataceen oo qaatacsannahay mana ogolnay waxaan ogolaan doonana ma aha wa salaamatiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh